mudane madaxweyne meesha horumar kolka laga samaynayo horumarku dib inuu keeno maahine waa inuu manaafacaad u keeno dadkii meesha agtooda uu ka samaynayay ninka horta ka faa'iidaysta waa inuu ahaado ninka meeshiisa laga samaynayo annaka horumaro badan baa meesheeda soo maray xadiidkaabaa soo maray annakoo waxba dheef ka arkin buu dhammaaday tariiqan baa soo maray annakoo waxba ka arkin buu dhammaaday tani iminka tiriigan baa socda weli waxba kama hayno dadkii meesha waa laga qaxiyey oo way ka qaxeen meel alla meel ay maraan ma jirto waa meeshii ay ka guurayeen ee guban iyo galbeed wa kala marayeen mag lama siin si alla si ay ku noolyihiin lama garanayo dadka meesha ku noolna ee maanta ka shaqeeyey nin keliya oo Soomaaliya kuma jiro sidii Shabeelka aan hore uga hadalnay qof baa ilaa imika uuna ku jirin taana waxaan ka hadalbaynaynaa inaad magdawgii meesha iyo dadkii lahaa aad u soo celiso waxaa kaloo jira Soomaali baan anaku dadka lagu leynayo meel kasta dhulkeena lagu leynayo magaca Soomaaliyeed lagu leynayo waa jiilka yagi waxa kamida cundufa kamida waxa kamida galmadu baa kamida waxa kamida cadalu baa kamida dhulkaas oo dhan dadka lagu leynayo waa dadkeeni barbaayinka xidhan meesha maxay dan la helay leeyahay dadkii inta lagu gubay aqaladii ka baxay banaan baxay cidada fadhiya hay'adii u soo gurmaday waa la xidhay yakiina oo dadkii hay'adda u tagayna way xidhan yihiin iska waa si ay gaajo ugu dhamaadaan cundufiyo yaka dhulkaas waa la dhabaystaa waxay ku wada xidhan yihiin samara waxaana inaad wax ka qabataan doonaynaa diri dhabe annaka asal u lahayn diri dhabe xaafadda ugu sarraysa ilaa qabiilka gaadhaysa anu halkii aad ku koray weeye xaafadaanood baa loola jiray maanta qof kaliya oo Soomaaliya ma joogo waa ilaa qabiilka meesha tagaysa waa ka ilaa xaggii ugu hoosaysa ka baxa la leeyahay waxaan leeyahay waa ciidan annagu shacab waan iska dhabaynaa ciidanka si naga dhaha haddaad ciidanna waan haysanaa waxaan ka baqayni ma jirto waa inaad dowladaha la hadashiin oo basar nooga qaado السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. arrinka warshada waxa ka hadlay kulay walaalay aabahay ba ka hadlay iyada saasan ku dhaafi waxay maraysaa deegaankeenu wuxuu marayaa in la yiraahdo wada noolaashaha ilaaliya dadka idin la degan way idin leeyihiin meesha halka ay deegaanka walaalaheena ee maad aragtaanay qaarkood ay cadowga nagu yihiin dhexmarkoogii la leeyahay war dadku nabada nagu dhexmaraan inigu nabad hal inagu dhex maraba iyaga lagu sabaya innagana waxaan maraynaa talbaan isdhex fadhino oo maaragtaan nagu dhex noolaadaan oo karaameyno waliba aan wax kasti oo ciise hadii lagu laayo halkaas iyo hadii meel kale lagu laayaba aan maaragtaan evangeliyada aan sugno marka iyadana intaas loo ogaado dadkan maaragtaan aan dhex marka loo diidan yahay in taana xal waara laga keeno dadkeena inooga keenan maanta waxaan fursad u helay inaad madaxweyne ay shacaan noogu timaado waagi hore waxa jiraysa diin dhashi oo kala baan ahayn waxa la yiri diinku caruurta wuxuu ku koriyaa daymada marka daymaan ku kori jirnay maadaama noo timid maanta annagu ku weydiin mayno ku dhimayno waxa noo qabay waxaan rabnaa waxa aad maanta niyada noogu hayso kulay inaad laba gobol ka dhigto xarunta ay shacab ka dhigto maad ku fikiraysaa inaad sidaad niyada ku hayso noo hirgelisana waan ka codsanaynaa arrinkan kulay nabadgelyada si guud aad ula socotaa madaxweyne arrintan maragtaanay xaggii cunnada ama raashinkii ama maad aragtaanay daraf nigdhigi ilaa hadda xal waara lama hayo degmadu xuduud bay ku taallaa iyo arrintaana inaan laga hawlgalo oo maaragtaanay daraf nigii lanoo furo iyada lafteedana waan codsan lahayn iyadana biyaha hadda oo biyaha Jabuuti tagay wax dubka aad soo marto dhan haraad bay iyay madaxweyne yihiin wixii aad ka warqabto waad ka warqabtaa kulay waan kugu celinaynaa dhul biyaha maaragtaanay Jabuuti tagay kaliya yaa maaragtaanay maraya in iyagana ceelal lagu talagalay kala origa oo maaragtaanay degmada ama deegaankeena oo maaragtaanay oo maamulayo
lagu kalsoonaan karo in la sameeyaan anigu codsan lahaa la soo qaata la socotaan Aisha waxay dalihii ugu horeeyay markii fikirka Soomaaliyeed lagu halgamay hormuudka u ahayd fikirkaas dadkii ugu badnaa ugu dhibaatayay meel waxaan marinaa deegaanka sidii halkan ka dhacday jirtay lama meel kale way jireen dhibaatooyin gaareen laakiin Aisha waxay hormuudkii waxay halganka ummadda Soomaaliyeed dhammaan dadka Soomaaliyeed marka in haddii aynaguna aynan xusuusanin kuwii nagu simay dhulkan aynu ku noolaano halgamay dhibaatooday innagana kuwa inaga dambeeya inama xusayaan marka waan ku raacsanahay odaygii soo jeediyey in arrintaa la xuso waxaan ogahay in bisha August la xuso hadda laftigeeda laakiin waxaan u baahannahay taallo sidii la sheegay in meeshan laga sameeyo oo dadkii u halgamay shacabkan naftooda ku waayey halgankii ay ku jireen in la xuso waan raacsanahay waxaan balan qaadaynaa in taallo ma aha oo keliya reer Aisha laakiin adkaysiga iyo geesnimada ummadda Soomaaliyeed oo dhan muujisa meesha laga sameeyo noqotana meel loo soo dalxiiso oo dadku ay soo arkaan taas waxaan maaragtay ku bogaadinayaa in marba faatixada loo baro dadkii maaragtay dhibaatooyin ka soo gaadhay walaaladeen iyo aabbayaasheen ahaa halgankaas qadaadey la soo maray xilligan aan ku jiro maanta ka adag oo jinsiyaddeena xitaa dafirsanaa dadka kacay Soomaali baan nahay in la xuso inaynu ogaano arrinta kale meesha taalo waxa weeye baahiyaha la soo jeediyey oo ay ka mid tahay dhanka waxbarashada dhanka jidadka gaar ahaan xaggan xuduudda arrinta la xidhiidha ammaanka dhibaatooyinka haysta shacabka Soomaaliyeed meelaha xuduudda degan iyo ilaa dadabo arrimo noocaas oo laga hadlay baa jira waxa weeye marka ugu horeysa inaad ogaataan xukuumaddu maalin iyo habeen waxay u taagan tahay danaha ummadda Soomaaliyeed marka laga yaabaa in sida dadka qaadkii ay ka hadlayaan media oo kale inaydan arag iyadoo xukuumaddu ka hadlaysa arrimahaas laakiin habeen maalin waa laga hadlaa haddana laftigeeda shirba ka socda sababa shalay shirba ka jira dadnabo waxyaalaha ugu waaweyn laga hadlayay waxaa ka mid ahaa cabashooyinka dadka Soomaalida ee magaalada degan ay sheegayeen ee la xidhiidhay maaragtay in la dhibaateeyo la dhagax tuuro la barakicinayo arrimihii noocaas ah baa laga hadlayay ilaa shalay cabashooyinka noocaas ah waa hawlaan ku hawlanahay hawlaan ka seexanayna maaha shir kasta wixii maarta qabta laga sheegi karo laakiin kulli hawlo fara badan oo runtii la xidhiidha arrimahaas oo qabanay baa jira lagana yaabo inay habboon tahay inaad xilliyada qaarkood iska wareysataan maaha dhaqameedka sida ugaaska oo kaliya isaga timaadaan fiicnaan lahayd hawlaan ka seexanay maaha dhammaan dadkaas dhibaatooyinka haystaan habeen iyo maalin wixii aan qaban karno waa la qabanaa taa in la ogaado xilligood waa la kala taagannahay shalayna waa gargaarinay maantana waa la taaganay taas inaad ogaataan waa muhiima arrinta la xidhiidha dhinaca waxbarashada oo kale waa fikir hadda la soo jeediyey waana eegaynaa kolley sanadkan mashaariicdii hore loo soo qorsheeyey baan haynay laakiin sanadkan 3 bilood kadib hadda inoo harsan tahay 3 bilood kadib waxaan bilaabaynaa qorshihii sanadka cusub ee kale kaas sidii wax loogu dar lahaa waan eegaynaa inagoo la kaashanayna guddoomiyaha gobolka iyo khubarada waxbarashada oo soo eegi doonta meesha ugu habboon iyo sida ugu habboon dadka loo caawin karo laakiin guud ahaan shacabka magaalada qadiimiya waa meel dad badan ku nool yihiin waa meel marka loo eego magaceeda